waxaan ahaa ganacsado isaga gudba magaalo kale ganacsi awgiis waxaan caadiyeystay inaan hal tuulo mar walba amaro maalin maalmaha kamid ah anigoo tuulada maraya oo hantideedii oo dhami ii saaran tahay geelkaygii si lama filaan ah ayaa waxa tuulada dhexdeeda igu istaajistay dhintooga anigoo keligayga ah cidna ma aysan jeedin seeftiisa ayuu qoorta iga saaray wuxuuna igu yidhi waan ku dilayaa xoolahaagana waan qaadanayaa saxaabigii ganacsatada ahaa wuxuu ku yidhi wax walba qaado balse ay dilin tuugii wuxuu yidhi may inaan xoolahaaga qaato oo aan ku dilo ayaa jirta maanta saxaabigii markuu arkay in ninkan uu rabo inuu dilo wuxuu ku yidhi waad dili kartaa xoolahaygana waad qaadan kartaa balse mid ii ogolow tuugii wuxuu ku yidhi waxaad doonto samayso anigu waan ku sugayaa kii ku dilana waan ahay saxaabigii wuxuu codsaday in loo ogolaado 2 ragcadood labadii ragcadood buu gudagalay inuu tukado tii koowaad tii labaad sujuud dhexdeedii Allah subhanahu wa ta'ala ku baryay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay adoonka wuxuu rabbigiisa u dhow yahay xilliga uu sujuudsan yahay sida daraadid Allah ku weydiiso sujuud dhexdeeda wax qalbo adoonto sujuud ayu Allah subhanahu wa ta'ala ku baryay duco aad u qurux badan buu ku duceystay ducada oo dhan ma sheegayo hadda balse in kamid ah ayaan idin sheegaya ducadu waxay ka kooban tahay 3 qaybood ugu horeyntii wuxuu yidhi اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأت به أركان عرشك إلهي وحان نورك وجهك جاءت كبو حسيتيرك عرشك كوي دي سنية مقعيدا لأونك سد أبو الله سبحانه وتعالى وحكوي دي سي وقدم بيتي وحويري يا مجيب المضطر إذا دعاه متك وحكا أجيبه وكان لباتيسن مركا وقرقار ويديستو خلصني من هذا اللص إيجا قرقار توقن يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني 3 jeer buu ku celceliyay midka dadka u gargaaro oo ii gargaar inta uusan ducadiisii dhamaysan si lama filaan ah wuxuu maqlay faras soo ordayo dhinaciisa u soo ordaya faraska waxa saaran qof dagaalyahan ah oo wajigu u xiran yahay tuugii wuxuu eegay ninkii farasta saarnaa isagoon booskiisa ka dhaqaaqin baa qoorta laga jiray madaxiisa loo kala daayay dhulka ayuu dhacay oo dhintay saxaabigii wuxuu soo eegay malagii hab ayuu si uu dhankaday wuxuu ku yidhi ilaahay ha ku barakeeye xageed ka soo jeeda oo xageed iga timid waxa loogu jawaabay anigu waxaan ahay malag ka socda samada afaraad ducadaadii koowaad ayaad ku ducaysatay waan ku maqalnay ducadaadii labaad ayaad ku ducaysatay haddana samada oo dhan ayaa gariirtay oo gilgishay ducadaadii saddexaad ayaad ku ducaysatay malaa'igta oo dhan Allah xaqiisa ay aadeen oo u tartameen aniga ayaana kaga hormaray waxaan Allah subhanahu wa ta'ala weydiistay inuu ii ogolaado badbaadintaada waana la ii ogolaaday inaan ku badbaadiyo kadib malakii wuu qarsoomay qofka dhibaataysan ducadiisa mar walba waa mustajaab